markale kulanti wanaagsan idlahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeysay xalay waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho tan iyo markii uu soo ifbaxay mooshinkii ay baarlamaanku ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankaasi dhex maray gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha lama sheegin qodobada ay ka wada hadleen balse waxa kulankaasi la sheegay inuu daba socday kulan ay hore u wada yeesheen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen oo ay heshiis hore wada galeen lama oga in ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanku ay ka wada hadleen mooshinka ay baarlamaanku ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo gudoomiyaha baarlamaankuna uu dhawaan sheegay in mooshinkaasi uu wali taagan yahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday sharci ka hortagaya gudniinka gabdhaha sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga Umar Maxamed Soomane madashan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ahayd mid si rasmi ah loogu daafurayay sharciga qaran ee ka hortagga gudniinka gabdhaha lagu sameeyo xubnaha ka qaybgalaya madashan waxa kamid ah wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya sharci yaqaano ururada bulshada rayidka iyo saraakiil matalaysay hay'adaha qaramada midoobay ee barnaamijkan ka caawinaya wasaaradda haweenka xukuumadda dalka qaar kamid ah xubnaha matalayay ururada bulshada rayidka ee ka qaybgalaya fadhigan ayaa goobta ka hadlay waxa ay aad u soo dhaweeyeen furitaanka sharcigan qaran ee ka hortagga gudniinka gabdhaha iyagoo tilmaamay talaabadan inay tahay mid lagu soo beegay xilligii loo baahnaa gabadha qofka keenaya hooyadeed buu ahaa waxay u keenayso qofkii qali lahaa qof aan garanayn aan dhakhtar ahayn oo operationkii sameeyeen qof aan maxayto u og way aragnimo u lahayn waxba ka garanayn gabadha mar alla markii ay u gubtaa oo in la dhaliyo la damco dhibaatooyin badan baa kala kulma marka aad baan ugu faraxsanahay in adduunka ogaaday oo aan maanta u fadhiyo daafurka gudniinka fircooniga dhibaato badan uu ku hayaa ummadda Soomaaliyeed qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed marka ugu horeyso gabadha iyadoo 7 jir baa la gudaa gudniinka marka lagu sameeyo emotional ahaan ama tareen ahaan gabadhu way qarashooga ka qaadaysaa meeshaas waxa dhici karta in dhiig wax fara badan uu yimaado ama ay sababto dhimasho in gabadhaasi ay dhimato ama khatar ay u gasho dhimashadii wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa gabagabada shirkan ka sheegtay in sharcigan hirgelintiisa ay wasaaradda kala kaashan doonto culimo sharci yaqaano iyo hay'adaha qaramada midoobay arinta oo gudniinka gabdhaha la joojiyo runtii waxa maanta idinkoo wada fadhiya sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina kaga dhawaaqo in la bilaabay wasaaraddu bilowday sharcigii lagu joojin lahaa gudniinka gabdhaha taasoo ma aragtay taas waxay ka turjumaysaa in sharcigu noqon doono sharci Soomaali oo loogu talagalay inuu ka dhaqan galo Soomaaliya haddaan wax yar idin kaga taabto labadan waxa kale nagala shaqeyn doona consultant ama la taliye oo ah wadaad arin aad diinta islaamka ma aragtay wax ka dhiga oo maanta aan la joogin laakiin maxaa la dhahaa nagala shaqeyn doono si marka taas loo helo waxaan isleenahay muddo 3 ilaa 4 bilood inaan ku soo gabagabeyn doono Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxa magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ku sii qulqulayay musharaxiinta u tartamaysa tagada madaxtinimo ee maamulka Puntland haddaba musharax madaxweyne Cali Cabdi Awaare ayaa waxa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan musharax madaxweynaha Puntland 2019 Cali Cabdi Awaare oo safar kaga soo kicitay magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti waxa garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Garowe isagoo loo soo galbiyay barxadda magaalada halkaas oo kula hadlay boqolaal dad ah oo ku sugayay barxadda weyn ee magaalada Garowe
nabadoonnadu mushaar ma lahaan jirin ma sharciyaysnayn anaa u sameeyey saxiixiyo in la aqoonsado nabadoonnada maanta xildhibaanada saxiixaya waxaan farayaa oo anaa idin saxiixiyey nin kasta soo magacaabaa igala soo badana xusaynoosii waxa weeye kow iyo labo maanta lama koobi karo waxqabadkii aan qabanay waa saluuqatahay dowladda waa sharixi doonaa waxaan rabaa maanta inaan idiin sheego cali cabdaawaare haddii maanta isoo sharaxay muxuu qaban doonaa kow waxaanu hagaajin doonaa jidadka oo kaabayaasha dhaqaalaha puntland maanta waa dhani waxaan rabnaa jidka kalareyn iyo caluula isku xiraya inaan samayno haddii allah awoodda la saamo waxaan rabnaa jidka dangorayo iyo eyl oo aan waxba laga qaban inaan dhammaystirno waxaan rabnaa dadka sheerkii isku xiraya iyo dhaxal